لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سورة أنفال أيان كجرنا ولي waxaanu ugu soo dambeysay shaytaanka oo ka soo qayb galay dagaalkii Badr, gacantana qabsaday ninka lagu magacaabo Abu Jahl ee yiri gala dagaalka, wax maanta idinka adkaanaya ma jiro dadka ka mid ah, aniga najaarkiinaan ahay. mar allaala markii labadii koox ay kulmeenay is arkeenna wuxuu u soo wareegsaday uu u soo gadoomay cirbihiisa, wuxuuna yiri beri ayaan idinka ahay, waayo waxaadan u jeedin ayaan u jeedaa. ilaahay ayaana ka cabsanaa, ilaahayna waa shadiidul ciqaab. munaafiqiinta iyo dadka qalbiga ka buka mar allaala markay malaa'ig waxay leeyihiin dadka mu'miniinta markay u soo socdaan Badr, kuwan diinkooda kedinaya. qofkii ilaahay tala saartana ilaahay waa casiis xakiim ahee wakhtiga ay malaa'igtu oofsanayso haddaad arki lahayd oo adbaartii wajiyaalkay ka tumaayaan amar cajiib leh had arki lahayd. sababtuna waxay tahay baa loo leeyahay waa waxay gacmayaalkiinu hormarsadeen, ilaahayna ma ahaanin mid addoommada dulmiya. dhaqankoodii caadadoodu waxay la mid tahay kuwii ayaga ka horeeyey oo aayaadka ilaahay ku kufriyey, fa akhadahum allahu, ilaahayna waa qabtay oo dunuubtoodii dembiyaalkooda sababtiisaa lagu qabtay. ilaahay waa qawiyun shadiidul ciqaab. daalika, arrintaasi waxay ku sugnaatay bianna allaha ilaahay lam yakun ma ahaanin muqayiran kii dooriya nicmatan nimco ancamahaa uu ugu nimceeyey nimcadaa calaa qowmin qoom dushii, xataa intii yuqayiruu ay ka dooriyaan maa bianfusihim waxa nafafyaalkooda ahaaday buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. arrintaasi waxay haabit ku tahay, daalika, arrintaasi waxay ku dhacday oo ay ku sugnaatay bianna allaha ilaahay inuusan lam yaku ahaanin muqayiran kii bedela oo doorinahaya nicmatan nimco kama bedelo ancamahaa nimcadaasuu ugu nimceeyey calaa qowmin qoom korkood, xataa yuqayiruu maa bianfusihim wixii nafafyaalkoodu ku sugnaa oo shukrin iyo khayr iyo wanaag iyo taaca ku socosho ah ilaa ay ka bedelaan. waayo nimco markuu ilaahay oon ugu nimceeyo, nimcadaasi waxaa lagu dabraa waa shukriga ilaah subxaana wa tacaala. shukrigaa haddii ay la imaan waayaan oo ay shukrigii ku bedelaan oo ay taqyiir ku sameeyaan wax kale oo kufri ah, sida ilaahay tilmaamay, alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufra wa axalluu qowmahum daara albawaar. taasoo kale qoom mar allaala markuu ilaahay u nimceeyo kadibna nimcadii la siiyey ay kufri iyo gaalnimo ku bedelaan, markaa buu ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatada saaraa. daalika bianna allaha lam yaku ma ahaanin ilaahay inuusan ahayn waayo muqayiran mid bedelo oo dooriya nicmatan nimco kama qaado oo xumaan uguma bedelo nimcadaasoo ancamahaa uu ugu nimceeyey calaa qowmin qoom dushiisa, xataa yuqayiruu ilaa ay dooriyaan ama ay bedelaan maa wixii bianfusihim naftoodu ku sugnaa. wa anna allaha ilaahayna samiicun alla maqal badan buu ahaaday, caliimun ee cilmi badan subxaana wa tacaala. dhaqankooda da'bigoodu waa ka da'bi aali fircawn, reer fircoon caadadoodii oo kale, iyo waaladiina kubii min qablihim ayaga ka horeeyey, kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa, fa ahlaknaahum waanu halaagnay bidunuubihim
dembiyaalkooda sababtiisaan ku halaagnay buu yidhi ilaahay. wa agraqnaa waan maashaynay oo waxaan biyo cabsiinay aala fircawna fircoon ahalkiisa. wakullan ku kastoo aya ka mid ahna kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa dulmi falay. ku kastoo aya ka mid ah daalimiin bay ahaayeen oo kuwa dulmiye oo diinta ilaahay dhinac mara ay markaa ahaayeen. kuwa ilaahay subxaana wa tacaala inkirsan ee diinta alla beenisan waxay la mid yihiin, lama dhaqan yihiin buu yidhi ilaahay reer fircoon oo kale. kada'bi aali fircawn fircoon ahalkiisii oo kale waayo dhaqankoodii, da'bigoodii, caadadooda. kada'bi aali fircawn da'bigoodii dhaqankoodu waa kada'bi aali fircawna fircoon aalkiisa da'bigoodii oo kale. iyo waaladiina kuwii min qablihim ayaga ka horeeyey. kadabuu way beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisay beeniyeen sida ay kuwaan u beeninahayaan yay reer fircoon iyo wixii ka horeeyey gaalo ahaa u beenisanaayeen aayaadka rabbi. fa ahlaknaahum waanu halaagnay buu yidhi ilaahay bidunuubihim dembiyaalkooda sababtiisaan ku halaagnay. wa agraqnaa waan maashaynay aala fircawna fircoon ahalkiisa. reer fircoon biyaannu ku qarqinay oon ku maashaynay. wa kullun ku kastoo aya ka mid ahna kaanuu daalimiina daalimiin bay ahaayeen. ina shara dawaabbi dawaab kuwa u shar badan wax tukubaya waxaa u shar badan cinda allaahi alla agtiisa aladiina kuwii kafaruu gaaloobay. kaafiriintaa u shar badan. fahum ayagu laa yu'minuuna ma rumaynahayaan. ma aha kuwa aaminaya tawxiidka iyo jiritaanka alle. ma aha kuwii rumaynahaya aayaadka ilaahay sida ilaahay tilmaamay. makhluuq kuwa u shar badan waa kaafiriinta. min aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu اlbariya. makhluuq kuwa u shar badan waaye buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala. idan dadka oo dawaab ah iyo wax socdee tukubayay arlada ku socda ilaahay agtiisa waxa u xun u shar badan kuwa kaafiriintae alla beeniyey, rabbi inkiray, aayaadka alla qaata lagu kari la'yahay, diinta aan oggolayn, xaqay awaamirta alla ka fog. ina shara dawaabbi cinda allahi alla agtiisa aladiina kubii kafaruu gaaloobay. fahum ayagu laa yu'minuuna rumayn maayaan oo kuwa rumaynaya ma aha. aladiina kubii waaye caahadta aad la ballantay oo minhum ayay ka mid ah. uma kabacdina yanquduuna burinhaya cahdahum ballantooda fii kulli maratin mar kasta. wahum ayagu laa yattaquuna dhowrsan maayaan kuwa cabsanaya ma ahoo rabbi ka baqahaya. ilaalinta ballanta uga biqi maayaan inay ilaaliyaan oo say doonaan bay ka yeelayaan. rumaynta ilaahay uga baqi maayaan. xaqa inay raacaan uga cabsan maayaan. aladiina kuwii caahadta aad la ballantay oo minhum ayay ka mid ah. uma kabacdina yanquduuna burinhaya cahdahum ballantooda. ballantii ayay ka baxahayaan oo ay burinahayaan fii kulli maratin mar kasta oo lala ballamo. waxaal hum ayagoo laa yattaquuna aan cabsanaynin. wahum ayagoo laa yattaquuna cabsan maayaan. kuwa ilaahay ka baqayo cadaabkiisa iska jirahaya, kuwa ilaahay ka cabsanayo diinta iyo khayrka ku dadaalaya ma aha. fa imaa tafqafannahum haddaad xargajiso rasuulkii allow, haddaad uga guulaysato filxarbi dagaal, fasharid cayr kala buri bihim ayaga man khalfahum man cidda khalfahum gadaashooda ahaatay. lacallahum waxay mudan yihiin yadakkaruuna inay waana qaataan. haddaad tabar dhigto oo ayaga aad dil iyo waxyaabo kale ku xargajisa. fa imaa tafqafannahum haddii aad ku tabar dhigto filxarbi dagaal gudihiisa ha ka joogsanina. fasharid buri buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala cayri bihim ayaga man khalfahum
cidda gadaashooda ahaatay lacallahum waxay mudan yihiin yadakkaruuna inay waana qaataan. wa imaa takhaafanna haddaad baqdo min qowmin qoom khiyaanatan haddii khiyaano aad uga cabsato, idiga iyo qoom baa ballan idin dhexaysa, waxaad ka cabsatay inay idin khiyaanaan oo ay ballanta idinkaga baxaan. hadday xaaladdu saa noqoto oo inaad ka baqdo ay dhacdo qoom khiyaanadooda, fambid u tuur ilayhim xaggooda ballanta u tuur oo u sheeg inay ballan idinka dhexaynin. calaa sawaa'in noqda marka calaa cilmi sawaa, cilmi sawa ahoo isku mid ah. ina allaha ilaahay laa yuxibbu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintae khiyaanada badan, kuwa khaa'iniintae wax khiyaana ilaahay ma jeclee ha khiyaanina. matalan qoomka waxaa idinka dhexaysa ballan ah inaan la dagaalamin, ballan ah in laysnabadgeliyo, ballan ah in heshiis iyo waxyaabo kale inay idin jirto. ballantaa idinka dhexaysaa waxaad ka dareenteen sansaan ah inay ballanta rabaan inay idinkaga baxaan, ama ballantii inay buriyaan baad uga cabsateen. hadday saas noqoto ha gaadina, ha khiyaanina, oo waxaad u sheegtaan saacaddan wixii ka dambeeya wax ballana inay idinka dhexaynin, ay iska kiin ilaaliyaan. ha khiyaanina oo khayaano ha ku samaynina. wa imaa takhaafanna haddii aad baqdo min qowmin qoom khiyaanatan khiyaano haddaad uga cabsato, fambid u tuur ilayhim xaggooda ee ballantii u sheeg in ballan ay idinka dhexaynin, buriya macnaha. oo hadda wixii ka dambeeya ogaada wax ballan oo heshiis ah oo naga dhaxeeya ma jira dhaha. ayaguna ha iska kiin ilaaliyaana idinkana iska ilaaliya. laakiin idoo ballantii ay jirta inaad ku gaadhaan oo aad khiyaantaan yaynan dhicin, xataa hadday gaalan yihiin. fambid ilayhim u tuur xaggooda ballantii calaa sawaa'in noqda calaa cilmi sawaa, cilmi siman isku midka ah. oo ayaguna ha ogaadaano inay ballan idinkala dhexaynin, idinkana ogaada inay ballan idinkala dhexaynin. ina allaha ilaahay laa yuxibbu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaa. walaa yaxsabanna yaysan u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyeyna sadaquu inay dhaqhayaan, inay horumarhayaanay ka fakanayaan. ilaahay yaysan u malaynin. inahum ayagu laa yucjizuuna maaha kuwii cajis gelin kara, kuwa ilaahay ka baxsan karoo cajis gelin karana ma aha. sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, wa annaa danannaa bay dhaheen jiniyaashii waxaan yaqiinsanay an lan nucjiza allaha fi اlardi walan nucjizahu haraban. ilaahay orodna kuma cajis gelin karni, inaan arlada uga cajis gelinoon uga fakanana ma awoodi karno. taasaan markaa yaqiinsanay. walaa yaxsabanna yaysan u malaynin aladiina kuwii kafaruu kufriyey oo gaaloobay, sadaquu inay yihiin kuwii fakanaya, kuwii dhaqayay ilaahay ka baxsanaya inay yihiin. waayo inahum ayagu laa yucjizuuna maaha kuwii cajis gelin karoo ilaahay uga fakan kara arlada. wa aacidduu u diyaargaraysta lahum ayaga waa cadowgiine ma statactum wixii aad kari kartaan oo min quwatin xoog ah, iyo wa min ribaati alkhayli ribaadkii fardaha xirxirnaantooda, turhibuuna kaasood ku cabsigelinaysaan bihi asaga caduwa allaahi ilaahay cadowgiisa, iyo wa caduwakum cadowgiina, wa aakhariina iyo kuwo kale oo min duunihim kuwa ka sokeeya laa taclamuunahum oo aadan ogayn idinka. allaahu yaclamuhum ilaahay baa oge, ilaahay ayaa ku cilmi badan. wamaa tunfiquu wixii aad nafaqaysaan oo aad bixisaan oo min shay-in shay uun ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana aad ku bixisaan, yuwaffa ilaykum waad idin oofinayaa ilaahay. yuwaffa wuu oofinayaa ilaahay ilaykum xaggiinna, wa antum idinkoo laa tudlamuuna aan laydin dulminin, idinkoon waxba laydinka dulminin, laydinkana nusqaaminaynin, yuu ilaahay idin oofin subxaana wa tacaala. waacidduu lahum ma statactum, waacidduu u diyaarsadoo u diyaargarooba lahum ayaga waxaad u diyaarsataan ma statactum wixii aad kari kartaan oo min quwatin quwad ah.
oo xoog ama awood ah. quwada la tilmaamayo alramyi waa shiishmo barashada shiishmada iyo ganitaanka markaa loola jeedaa min quwatin wa min ribaati alkhayli, khaylkii fardaha xirxirnaantooda oo aad u diyaargaraysanaysaan kaana ugu diyaargarooba turhibuuna kaasood ku cabsigelinaysaan bihi asaga caduwallaahi ilaahay cadowgiisii wa caduwakum cadowgiina, waayo cadowgiina waa cadow alle, cadowga allena waa cadowgiina. sida aan soo marnay laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa'a, sida ilaahay tilmaamay wa aakhariina kuwo kale oo min duunihi kuwa sokadooda ah, kuwaa ka sokeeya ayagoo la yidhi ilaahay bisaa yaqaanay ma taqaaniin, munaafiqiinta loola jeedaa baa la yidhi. wa aakhariina kuwo kale oo min duunihim sukadooda ah oo laa taclamuunahum aadan ogayn idinka, waayo munaafiqa muslimiintuu ku dhex jira, waa la soomaa oo wuu la tukadaa, wuu la dagaal galaa oo wax kastoo khayra wuu la sameeyaa, haddana ma aha dad ayaga markaa ka mid ah. idinku ma ogaan kartaane ilaahay ayaa yaqaana subxaana wa tacaala. wamaa tunfiquu waxaad nafaqaysataan oo min shay-in shay ah, wax uun ha ahaado, ha yaraado, ha badnaado. rasuulku suu wax bixinta dadka ugu guubaabinayay, asnaafteedii noocyadeennana u sheegaayey, wuxuu soo gaaray inuu yidhi yaa baxsanaya walow bishiqi tamr, jeex timireed. shay uun wax allaala waxaad adi kari kartood awoodi karto, tiib iyo nafaqo tiib xalaal ahna markaa ah ama kasab tiib ah. yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wa mima akhrajna lakum min alardi, sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. wamaa tunfiquu wixii aad nafaqaysaan oo aad bixisaan oo min shay-in shay ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisii dan allama aad ula baxdaan yuwafayaa ilaykum waa lidiin oofinaya, yuwafa ilaahay wuu oofinayaa ilaykum xaggiina wa antum adinkoo laa tudlamuuna aan lidinka dulminaynin. wain janaxuu hadday u soo iishaan lisalmi heshiis fajnax lahaa u iila rasuulka ilaahay, watawakal cala allaahi ilaahayna tala saaro, innahu ilaahay huwa ilaahay alsamiicu waa alla maqal badan, alcaliimu ee cilmi badane. hadday dhahaan aan heshiino oo xaggooda uu ka yimaado, hadiidin buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala, hadiidin ee markaa ogolee. wain janaxuu hadday u iishaan oo ay u soo janjeersadaan lisalmi nabadgelyo, heshiis ay dhahaan xarbada aan joojino, aan wada hadalno, aan heshiino, waxa iyo waxa aan ku heshiino, fajanax lahaa hadiidin rasuulka ilaahay, fajanax u iila lahaa ayada salmiga iyo heshiiska. sidaa darteed waxaa mamnuuca marka hore muslimiinta xaggooda inuu ka yimaado. walaa tahinuu watadcuu ila asalmi wa antum alaclawna buu yidhi ilaahay. ha tabardarnaanina, ha daciifina, heshiisna ha u wacanina, waayo idinkaa ka sarreeyee. walaa tahinuu watadcuu ila asalmi wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin. haddaad mu'miniin tihiin idinkaa ka sarreeya, laakiin hadduu dhankooda ka yimaado oo ay dhahaan salmii heshiisaan rabnaa, isdhiibi ay u soo hoggaansamaan, waa lala qaadanayaa. marka lays adkayn maayo, laysku madax adkayn maayo, waayo xarbowseeda waa dhib iyo dhibaato. u iila buu yidhi ilaahay. wain janaxuu hadday u soo iishaan lisalmi heshiis iyo nabadgelyo iyo badbaado, fajanax lahaa u iila adigana hadiidin rasuulkii ilaahayow, watawakal cala allaahi ilaahay dushiisana tala saaro, ilaahayna talada u dhiiba subxaana wa tacaala, waayo innahu ilaahay huwa asagu alsamiicu waa alla samiica oo maqal badan, alcaliimun caliim ahoo cilmi badan buu ahaaday subxaana wa tacaala. aniga heshiis ma rabo iyo waxaa hadhihin. sidaa darteed wax allaala wixii khudaba ah oo lagu heshiiyo ilaahay subxaana wa tacaala u tala saarta, waayo ilaahay waa samiic caliim ah. wain janaxuu lisalm heshiis iyo hoggaansamid hadday u soo iishaan, fajanax lahaa u iila adigana, watawakal cala allaahi ilaahayna talada u dhiibo, innahu ilaahay huwa alle alsamiicu
waa alla maqal badan alcaliimu cilmi badan subxaanahu wa tacaala. daalika arrintaa waxay ku sugnaatay bianna allaha ilaahay lam yakun inuusan ahaanin mugayiran mid doorinahaya nicmatan nimco iyo barwaaqo ancamahaa uu ugu nimceeyey calaa qowmin qoom dushii xataa yugayiruu ilaa ay ka dooriyaan qoomkii maa wixii bianfusihim nafafyaalkooda ku sugan. wa anna allaha ilaahayna samiicun waaye alla maqal badan caliiman oo cilmi badan dhaqankooda da'bigoodii caadadooduna ka da'bi aali fircawna reer fircoon dhaqankooda oo kale waaye iyo waaladiina kuwii min qablihim ayaga ka horeeyey kadabuu waxay beeniyeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa fa ahlaknaahum anaguna waan halaagnay bidunuubihim gardaro laguma halaagina dembi ay sameeyeen sababtii baanu ku qabanay bidunuubihim dembiyaalkooda sababtiisa. wa agraqnaa waan maashaynay aala fircawna fircoon ahalkiisa wa kullun ku kastana kaanuu waxay ahaayeen daalimiina kuwa gardarsaday oo dulmi falay. ina shara dawaabi dawaab kuwa u shar badan wax tukubaya waxaa u shar badan cinda allaahi ilaahay agtiisa aladiina kuwii kafaruu kufriyey fahum ayagu laa yu'minuuna ma rumaynahayaan aladiina kuwii caahadta aad la ballantay oo minhum ayay ka mid ah uma kabacdi yanquduuna burinahaya cahdahum ballantooda fii kulli maratin mar kasta wahum ayagu laa yattaquun kuwii cabsanaya maaha. fa imaa tafqafannahum haddaad ka guulaysatood tabar dhigto fi lxarbi xarbi dhexdii aad uga guulaysato fasharid cayri bihim ayaga man cid khalfahum gadaashooda ahaatay lacallahum waxay mudan yihiin yadakkaruuna inay waana qaataane. wa imaa takhaafanna haddii aad cabsato min qowmin qoom aad uga baqdo khiyaanatan khiyaano inay idinku sameeyaanna fambid ilayhim utuu xaggooda ballanta u sheeg inaydan ballan idinka dhaxaynin calaa sawaa'in isku mid noqda marka calaa cilmi sawaa noqda oo ha ishagaabina. ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla alkhaa'iniina kuwa khaa'iniintae qiyaamada badan. walaa yaxsabanna yaysanna u malaynin aladiina kuwii kafaruu gaaloobay sadaquu inay fakanayaanay dhaqayaanay ka hormarayaan. waayo inahum ayagu laa yucjizuuna kuwa cajis gelin kara ilaahay oo ka baxsanayaa ma ahee. wa aacidduu u diyaargaraysta lahum ayaga ma statactum intaad kari kartaan oo min quwatin xoog ah iyo wa min ribaati alkhayli fardaha xirxirnaantooda iyo diyaargarayntoodana ugu diyaargarooba turhibuuna aad ku cabsigelinaysaan bihi kaa caduwa allaahi ilaahay cadowgiisii wa caduwakum cadowgiinii wa aakhariina kuwa kale oo min duunihi sukadooda ah. munaafiqiinta loola jeedaa laa taclamuunahum oo idinku aadan ogayn. allahu yaclamuhum ilaahay baa ogoo ku cilmi badan waxay yihiin. wamaa tunfiquu waxaad baxsataan min shayin oo shay ah fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisaad ula baxdaanna yuwafa ilaykum waa laydin oofinayaa xaggiina abaalbadkiisii jazihiisaa laydin siinayaa. wa antum adinkoo laa tudlamuuna aan laydinka dulminaynin. wain janaxuu hadday u soo iishaan oo ay u soo leexdaan lisalmi heshiisna fajanax lahaa u iila heshiiska xaggii hadiidin ee ka ogolow rasuulkii allah watawakal cala allaahi ilaahayna tala saaroo ilaahay talada u dhiibo. innahu ilaahay huwa ilaahay alsamiicu waa alla maqal badan alcaliimu haddana cilmi badan subxaanahu wa tacaala. haddii heshiiskaas ay isi soo sallimeen oo aad ka ogolaateen ay khiyaano ka wateen maxaa la samaynaa? hadday rabeen inay idinku dhagraanna jawaabta way noo imaan doontaa. wain yuriiduu an yakhdacuuka faina xasbaka allah huwa aladii ayadaka binasrihi wabilmu'miniina wabiاllahi towfiiq. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.